yar oo ka mid ah musharixiinta u loolamaya jagada doorashooyinka aqalka golaha wakiilada Somaliland kana sharaxan gobolka Saaxil ayaa maanta soo gaaray magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland waxaana garoon musharax Cabdicasiis Yaasiin Xuseen Yaasiin yar oo ka mid ah musharixiinta u loolamaya jagada doorashooyinka aqalka golaha wakiilada Somaliland kana sharaxan gobolka Saaxil ayaa maanta soo gaaray magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland waxaana garoonka diyaaradaha ee Cigaal International Airport ku soo dhaweeyay boqolaal ka mid ah taageerayaashiisa soo dhaweynta kadib musharixiinta u loolamaya jagada doorashooyinka aqalka golaha wakiilada Somaliland kana sharaxan gobolka Saaxil ayaa maanta soo gaaray magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland waxaana garoonka diyaaradaha ee Cigaal International Airport ku soo dhaweeyay boqolaal ka mid ah taageerayaashiisa soo dhaweynta kadib musharaxa oo la hadlay dadkii kala duwanaa ee soo dhaweeyay عليهو برهانتيو بركادو كل رنتهاي عليهو برواقادا وشدو هرسيد لعقو وذا هرد بحي مرتبا حد وينيو سلان بوحديقهو عليهو برهانتيو بركادو كل رنتهاي عليهو برواقادا وشدو هرسيد لعقو وذا هرد بحي مرتبا حد وينيو سلان بوحديقهو عليو لبيلاي مرخديس لاغو لذي عليو بوغيغيو بركيو ونايو بيحيغا لبربرتيو باعوغا كيالا دعاكو باشرين لبيلاي مرخديس لاغو لذي عليو بوكيجيو بركيو ونايو بيحيغا لفدبرتيو باعوغا كيالا دعاكو باشرين عليهو بشاني جو وبلا شدادي ومالين بلدكي وبلا شدادي ومالين بلدكي وشاديو ددوينها بلدها بأوغو قرن وشاديو ددوينها بلدها بأوغو قرن